ma isweydiisay weli sababta bangiyada ay ugu guurayaan digital banking? Ma dhaba mobile banking, internet banking and payment systemka ay kordhiyaan waxqabadka bangiyada? Maanta waxaan eegi doonaa cilmi baaris laga sameeyey Soomaaliya oo ka jawaabaysa su'aalahaasi. Dunidu maanta kaliya ma ahan bangiyada meel lagu kaydsado lacag, waa adeeg lala xiriiriyo telefoonka, internetka iyo apps-ka. Soomaaliya gaar ahaan digital banking-ka wuxuu u noqday laf-dhabar adeegyada dirista lacagaha, helidda bangiyada, yareynta kharashaadka iyo kordhinta macaamiisha. Laakiin su'aashu waa digital banking-ka si dhab ah ayuu u kordhiyaa waxqabadka bangiyada? Cilmi baaristani waxaa qoray Cabdiqaadir Maxamed Nuur sanadkii 2022 waxaana lagu daabacay International Journal of Financial Research. Ujeedada daraasadani waxay ahayd in la qiimeeyo doorka waxqabadka digital banking-ka ee soo saarka bangiyada Soomaaliya, khaasatan magaalada Muqdisho. Daraasadani waxay si gaar ah u eegeysay 3 qodob oo waaweyn: service delivery, payment infrastructure, iyo customer adoption. Cilmi baaristani waxay adeegsatay hab descriptive and statistical ah. Waxaa la wareystay 300 macaamiil bangi kuwaas oo si joogto ah u isticmaala adeegyada digital banking-ka. Natiijada cilmi baaristu waxay ahayd mid aad u cad. 1. Kaabayaasha lacag bixinta, helitaanka ATM-yo, mobile platforms iyo payment systems-ka wuxuu si xooggan u kordhiyaa waxqabadka bangiyada. 2. La qabsiga macaamiisha, marka macaamiishu si sahlan ay u qaataan digital banking-ka, waxqabadka bangiga si weyn ayuu u kordhaa. Tani waxay muujinaysaa in tiknoolajiyadda keliya aysan ku filnayn, balse isticmaalka dadku ay muhiim tahay. 3. Adeegyada digitalka ah, adeegyada digitalka ah laftooda waxay leeyihiin saameyn togan, balse saameyntoodu waxay ka yar tahay marka lala barbar dhigo kaabayaasha lacag bixinta iyo la qabsiga macaamiisha. Tani waxay caddaynaysaa in bangi digital ah uusan noqonayn mid guuleysta haddii uusan haysan kaabayaal adag, macaamiil fahansan adeegga iyo adeeg la isku halayn karo. Guud ahaan, cilmi baaristu waxay caddaysay in digital banking-ku si taban oo u saameeyo waxqabadka bangiyada Soomaaliya, gaar ahaan marka ay jiraan kaabayaal wanaagsan iyo macaamiil adeegsata adeegga. Haddii aad jeceshahay cilmi baaris lagu sharaxo luqadaada hooyo, ukumo channel-ka, fikirkaadana noogu reeb qaybta faallada.